Siyahayaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa maanta furay kulanka la tashiga ah oo wasaaraddu ay hay'adaha kala duwan ee heer federaal, maamul goboleed, ganacsatada, maalgashadayaasha iyo taageerayaasha caalamiga ah ay kala sameeysay xeer nidaaminta lagu dhaqangelinayo sharciga shirkadaha Soomaaliya oo ay wasaaraddu soo diyaarisay iyadoo oo la kaashanaysa hay'adda IFC iyo waliba xafiiska sharci yaqaanada ee Muqdisho. Siyahayaha wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in sharcigan shirkadaha iyo xeerkani ay ahmiyad weyn u leeyihiin fududeynta adeega ganacsiga iyo maalgashiga, diiwaangelinta shirkadaha, xogta ganacsiga, fursadaha maalgashiga iyo wixii la mid ah. Waxa kale oo uu sheegay in muhiimad uu leeyahay xeerinta iyo kala hagidda maamulka shirkadaha ganacsiga, xuquuqda maalgashadaha, dhiirigelinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo soo jiidasho maalgashadayaal caalami ah oo shaqo abuur iyo kobcin dhaqaale intaba isugu jira. Waxaa juhdi weyn la geliyay sidii sharciga runtii loo dhaqangelin lahaa. Si loo dhaqangeliyo waxaa runtii laga shaqeeyay xeer nidaamyaha maanta hortiina yaal kaasoo muddo runtii dheer nagu qaatay sidii loo heli lahaa xeer nidaamye la jaan qaadi kara kuwa dunida ama xeerarka casriga ah si ay noogu fududaato in ganacsigeenna la fududeeyo, ganacsigeenna uu noqdo mid alxamdulillah soo jiidin kara mid leh kalsooni oo dadku ay ku aamini karaan hantidooda. Shirkan oo muddadiisu hal maalin ay tahay ayaa waxa uu Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ka qaybgalayaasha kulanka kula dardaarmay inay sida ugu habboon ay uga tala bixiyaan xeerkaas lagu dhaqangelinayo sharciga shirkadaha iyaga oo eegaya sida ay u dhisan yihiin shuruucda iyo xeerarka shirkadaha adduunka si sharcigani u noqdo mid casri ah oo la jaan qaadaya kuwa ka dhisan dunida iyo waliba dhiirigelinta soo jiidashada ganacsi iyo maalgashiga si shirkaduhu u helaan kalsooni ay wadanka ugu aamini karaan hantidooda. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka.